It's the end of an era for Yahoo. The telecommunications giant announced the merger on Monday after several months of negotiations. The deal will include Yahoo's core internet operations like Verizon, officially now selling its media assets, including AOL and Yahoo, only $5 billion. shirkadda Yahoo haddii ay maanta sii shaqayn lahayd oo magaceeda uu sii jiri lahaa waxay ahaan lahayd shirkad hogaamiso dhammaan tech companieska iyo guud ahaan internetka. If we find something as we're adding these that really catches our eye and is interesting, and we think that other people will think is really interesting. dhaqaale ahaan shirkaddan waxay ku fadhiday burburkeedii ka hor $128 bilyan oo dollar. Dhammaadka sagaashameeyadii waxay heleen jaanis ay ku iibsan karaan Google qiimo ka kacayo $1 milyan oo dollar kaliya, laakiin kama aysan faa'iideysan jaaniskaas. Webka Yahoo wuxuu noqday kii ugu soo booqashada badnaa abid. wuxuu ahaa albaab laga soo gala internetka. haddaba su'aasha maxaa ku dhacay shirkaddan? waa maxay khaladka ay sameeyeen oo maanta ku sababay inay ka qarsoomaan saaxadda internetka? Here are companies like Amazon, like Yahoo, like others who are running out there and locking up as much real estate as they can. The financial markets are pouring money into these companies and they're grabbing as much as they can. magacaygu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeenan waxaan oga hadlaynaa bilowgii guusha shirkadda Yahoo iyo meesha ay ku dambeysay. casriga iyo dunidan aan maanta joogno aad ay u sahlan tahay isticmaalka internetka. haddii aad macluumaad internetka uga baahato Google ayaad aadaysaa, adigoo waqti badan aanan ka lumin meeshaas ayaad ka helaysaa wax walba aad u baahan tahay. xogta ama jawaabta aad raadinaysana waxaad ku helaysaa daqiiqado kooban kaliya. laakiin waqtiyadii uu internetka dunida ku cusbaa qofka inuu macluumaad internetka ka helo aad ay u adkeed. isku dhaxyaac badan ayaana ka jiray. haddaba meeshaas ayay ka soo bilaabatay shirkadda Yahoo sanadii 1994. laba wiil oo saaxiibo ah oo wada dhigta college oo lagu kala magacaabo Jerry iyo David ayaa waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan web ay internetka macluumaad kaga raadsadaan si ay ugu sahlanaato isticmaalka internetka, maadaama waagaas uu isku dhaxyaacsanaa internetka oo qofka hadduu wax ooga baahdo ay ku adkeed inuu toos u helo. labadan wiil ee dhalinyarada ahna qorshaha ay webkaas ka damacsanayeen sidaas ayuu ahaa. waxayna u sameeyeen qaybo kala duwan sida qaybta waxbarashada, madadaalada, siyaasadda, caafimaadka si ay ugu sahlanaato hadduu qofka webkan soo booqdo meesha uu xiiseynayo ama daneynayo inuu toos u aado. magaca ay website-kooda u bixiyeen wuxuu ahaa David and Jerry's Guide to the World Wide Web. qorshaha ay website-kan u sameeyeenna ma ahayn inay lacag ka sameeyaan ee waxay ahayd inay u sahasho isticmaalka internetka. markay ku guuleysteen sameynta website-kooda waxay la wadaageen asxaabtooda, qof walbana wuxuu la sii wadaagay saaxiibkiis ilaa website-kii uu isku bedelay meel public ah uu qof walba isticmaali karo. meeshaas ayay fursad fiican ka heleen labadan wiil, waxayna ku fikireen in isla markiiba ay sameeyaan qorshe ah inay lacag ka sameeyaan website-kooda maadaama uu noqday public dadkan ay aad u xiiseynayaan. waxay ka bedeleen magacii waxayna u bixiyeen magaca Yahoo. Yahoo waxay isku bedeshay shirkad dadka u sahasha isticmaalka internetka. waxay kasbadeen dad aad u fara badan maadaama internetka aad loo xiiseynayay, ayagana ay la imaadeen fikrad cusub oo internetka lagu isticmaali karo. shirkadihii kala duwanaa ee waagaas jireen waxay bilaabeen in website-ka Yahoo ay wax ku dhaxaysiistaan. meeshaasna Yahoo waxay ka sameysay lacag aad u fara badan. waxay horumarin ballaaran ku sii sameeyeen website-kooda, waxayna sameysteen productyo iyo waxyaabo ayaga u gooni ah maadaama ay kaga faa'iideysanayaan macaamiishan iyo dadka ay soo jiiteen. webka Yahoo wuxuu noqday meel hadduu qofka internetka soo galo uusan ka dhex bixin maalinkii oo dhan. haddii uu news akhrisanayo oo ka dhex akhristo website-ka Yahoo, sidoo kale haddii uu shopping sameysanayana ka dhex sameysto website-ka Yahoo. waxayna sameeyeen Yahoo Mail oo u sahashay inay ku kasbadaan macaamiil aad u fara badan. sidoo kalena waxay sameeyeen Yahoo Chat ama meel ay dadka ku sheekaystaan sida hadda maanta aan u isticmaalno WhatsApp-ka iyo Messenger-ka. shirkaddan waxaa la aasaasay 1994. 6 sano kadib dhaqaalaha iyo saamiga ay shirkaddan ku fadhido wuxuu kor u dhaafay $128 bilyan oo dollar, taasoo ka dhigtay shirkad hogaamiso dhammaan internetka, sidoo kalena shirkadaha ugu waaweyn caalamka. 2001 webka Yahoo wuxuu noqday webkii ugu soo booqashada badnaa abid. laakiin wax walba hadda ay isbedelayaan oo shirkaddan waxaa u furmay albaab cusub. laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa shirkadda Yahoo waxay u soo bandhigeen inay ka iibsadaan shirkad yar oo ganacsi oo ay waagaas bilaabeen. qiimaha ay shirkadooda iskaga iibinayaan wuxuu ahaa $1 milyan oo dollar. laakiin shirkadda Yahoo ka dhaqaale ahaan waa shirkad xoog badan. $1 milyan oo dollar waxba lama ahan. labadii wiil hoos ayay u fiiriyeen wayna ka diideen heshiiskii. haddaba go'aankaas ay Yahoo ku diideen heshiiskaas wuxuu ahaa go'aankii ugu xumaa abid oo ay sameeyaan. shirkadaas yar oo ay diideen Yahoo waxay ahayd shirkadda maanta hogaaminaysa internetka, waa shirkadda Google.
wixii ka dambeeyay 2002 ama 2003 isbeddelka tiknoolajiyadda ayaa la soo indhaqaadeen shirkadda Google waxayna la imaadeen system horumarsan oo la jaan qaadayo tiknoolajiyadda casriga ah internet searching-kana waxay ku soo ziyaadiyeen modern cusub oo ka horumarsan kan shirkadda Yahoo ay isticmaasho laakiin shirkadda Yahoo way isdhigteen oo waxay islahaayeen cidna internetka idin kulama tartami karto oo xajmiga iyo awoodda ay internetka ku lahaayeen ayay istuseen halka dhinaca kale Google habeen iyo maalin ay ku soo joodeen horumarinta systemkooda waxayna gabi ahaan la wareegeen macaamiisha shirkadda Yahoo iyo xayeysiimihii shirkadda Google waxay noqotay meel dadka u sahasho inay macluumaadyada si dhaqso leh ku helaan waxayna ku guuleysteen inay kala wareegaan internet searching shirkadii haysatay ee Yahoo meeshaasna Google waxay ku kasbatay macaamiil aad u fara badan halka shirkadda Yahoo ay lumisay macaamiisheeda ku xirnaa Yahoo waxay ogaadeen in dadka ay u bateen ama aadeen dhinacaas iyo Google ay u imaadeen waxay ka codsadeen in Google laga soo dhaxgalo ama laga soo kiciyo website-ka Yahoo halka dadka markay internetka soo galaan ay Google toos u aadi lahaayeen waxay soo aadayaan website-ka Yahoo meeshas ay Google ka dhex isticmaalayaan laakiin shirkadda Google dantooda ayay yaqaaneen waa ay ka diideen heshiiskan sanadkii 2008 Janis aad u fiican ayaa soo maray shirkadda Yahoo Microsoft ayaa waxay u soo bandhigeen Yahoo inay ku iibsanayaan lacag dhan 44 bilyan oo dollar qorshaha iyo hadafka ay Microsoft damacsanayeen wuxuu ahaa inay xulafaysi awood leh internetka ku yeeshaan maadaama shirkadda Google ay tartan kula jiraan khaladkii kale oo ay Yahoo sameysay heshiiskii Microsoft waa ay diideen sanadkii 2006 shirkadda Yahoo waxay mitin la qaateen oo ay la fadhiisteen milkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg waxayna u soo bandhigeen heshiis ah inay ka iibsanayaan Facebook qiimo ka kacayo 850 milyan oo dollar laakiin Zuckerberg waa uu ka diiday waxaana la sheegaa inuu dalbaday 1 bilyan oo dollar haddii ay Yahoo 1 bilyan ogolaan lahayd Facebook waa ay la wareegi lahaayeen laakiin bakhaylnimadooda ayay Janiskaas uga faa'iideysan waayeen shirkadda Yahoo waxaa haysatay nidaam xumo iyo fursadaha horyaalo oo ay ka faa'iideysan waayeen tiknoolajiyadda casriga ah iyo isbeddelka dunidana way la jaan qaadi waayeen Yahoo Mail waxaa bedelay oo hawada ka saaray Gmail Yahoo Shopping asagana waxaa bedelay Amazon Yahoo Chat waxaa hawada ka saaray oo bedelay Facebook Messenger iyo WhatsApp dhamaadkii 2016 shirkad ayaa waxay Yahoo ku iibsatay 4 bilyan oo dollar oo kaliya halka 2008 ay diideen heshiiska ee Microsoft u soo bandhigtay oo ahaa 44 bilyan oo dollar meeshaas waxaa ku soo dhamaaday ama ku burburay magacii shirkadii weyneed oo hogaamin jirtay internetka ee Yahoo ilaa maantadan waa ay shaqeysaa laakiin sideeda hore uma awood badno uma saameyn badno haddaba muuqaalkan waxaan ka faa'iideynaa inaadan meel cidla ooga tagin fursad walba oo ku soo marto oo aad ka faa'iideysato sidoo kalena aad la jaan qaado ama la socoto casriga ama meesha ay hadba dunida marayso meel cidla ahna ayaan lagaaga tagin haddaba muuqaalkan intaas ay ku saabsan yahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro oo ay oga faa'iideystaan waqtigaagana waad ku mahadsan tahay